السلام عليكم. م- anigoo ah Ilhaan Xasan, waxaan sheegayaa halkan ka cadeynayaa inaan wiil jeclaa jiray, wiilkaas oo ah fanaan Soomaaliyeed oo la dhaho Dayax Dal Noorshe. Dayax waagii oo kow fanka kusoo biiraayo maalintaas aan ka helay, kadibna maxaa la dhahaa ma tixraacin aniga, waa iska maxaa la caadi iskaga dhigan jiray. kadib naagu waa aroosaa maqle farxiyo markuu arooso waan qaracmay wallaahi, si ahay si kale ma ogeen. aniga haddan isku qancinayo inuu afar ninkan u banaan yahay, oon isdhahayo afar ilaah u baneeyey, un maalin un naag umu guursanaya, naagtaasna inaa naqataa laga yaaba. farxiyo marka naagta markuu guursaday, farxiyo asigii farxiyadana waxaan arkay ayagoo loof isku gacmaha iska wadaan, ayadiyaaba deyn weysay, wiilkii waxay ka dhigtay sida boorsadeedoo kale. alxamdulilah haddana waxay u dhashay awlaad, markay u dhashay waa taqaanaa ragga awlaad haddii loo dhalo maxaa la dumarku way sii jeclaadaan, kama xumo awlaada allah siiyo maho, laakiin maxaa la rabaa naagaha kale asaga dad badana u baahan oo maxaa la rajo kale, marka ma ahan inuu rajadiisa iska dhumiyo. naagtan ilaah afar u baneeyay, ninkan ilaah afar u baneeyay waan ognahay, laakiin kaligeed inuu isku koobo waa laga fiican yahay sooma. markii waxaan dhihi lahaa Dayaxow, dumar badan baa ku rabee, naagtan kaligeed isku gooyn, maxaa la sida boorsadii oo kale isku wadwadin, annagana waa kuu baahanay, dadka kalena xaaladooda wareyso, xataa naagaha kale si aa u xalisid waa inaa barataa. naagaha kale kama wadi, naaga kale nafteeda ka wada, anigu waa ku jeclahay, waxaan ahay qof dareen oo kuu qabto inaa wax ila qabatid aan jeclahay. naagtaas keligeedana ha u go-in, nin rag waa ilaahay kaa dhigay afar ilaah u baneeyey, anna waan ku jeclaho. maxaa la ii safiiri kii waxa kaaga daran meel alla meeshuu joogo waa aadaa, xaflada ahaato aroos, markuu hadduu ku heesaayo sida u labisanayo waa indho kale ma laha ayada ahan, balaayada ma sixirtay wiilka warnaagiye ninka nooga faq. maxaa lahaa ilaah afar u baneeyey waa ogtii ninka daa ashaydiye ninkaasaan ugu waaninaysa goormaa jeclaatay. aniga waxaan jeclaaday maalintii kow ee heesta ugu horeysa oo qaaday aan tv-ga ka arkay, kadib fanaankan wiilkan intuu joogo muqdisho jooga, markii la dhaho farxad meela isla geeyaa waayo, kama markaas heesiisaan jeclaa, laakiin asagana kadib waan jeclaaday. mar walbo meeluu joogo, meel kasta waa joogaa, xafladaada aroos ha ahaado, meel walba oo isaga taagan yahay waa taaganahay. ay marka ma agtiisa istaagtaa, soo ku arko ma dhinaca ka istaagtaa, maxaa sameysaa markaa xalfada tagtid? aniga agtiis agaarihiis waa istaagaa, laakiin lama hadlin, waayo qof aad jeceshahay lama hadli karto maahan, waa wadnaha ku xanuunaa. laakiin inuu isaga ku dareema fiican, mar walba in la is aragnaa, hataa isbarataan oo hataa oo ku dhahay qofiyo maalin walba meel walba isku aragnahay, see tahay xaaladda ima dhaho xataa. haye weligaa ma la ciyaartaa si gooni ahaan inta u dhawaato ma la ciyaarta? may si gooni lama ciyaarin, asaga maalin walba ku jira moo farxiyo saan, waa farxiyadii uu ka qafifay, farxiyo maalin walba maxaa la jihada ka qabsatay. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu isagana qalbigiisa oo isoo aadiyo. maasha allah, gabar iimaan lahaata waa sugaysaa, iska sug haddana waa helay insha allah. xataa maalin aan aroos anaga leenaha ugu wacay oo wiilal asaga is yaqaanin la hadlay, aan dhahay ninkaas u baahanaha lii keen, markii lii keen karti aa kula hadleeba waayo qofkaa jeceshaha way adagtaa si aa ugu sheegato, hore kama dhigi karto waa ku jecla, waayo wuxuu ku dhahayaa gabarma iyo aragti intay igu jeclaatay, soomaaliyana sooma ma aaminayno, kalsoonida aan ugu yar. marka si aan kalsooni ugu helo waxaan dhihi lahaa Dayaxow waa ku jeclahay, maxaa la qalbiyada oo bini'aadan ku baahan, qalbigaasna ani mid kamid anaa ah, laga yaabo dad kale xataa inay ku jeceliin, laakiin aniga qaasatan an nafteeda ku bugtaa oo ku baahan tahay. Dayaxow waxaan ku leeyahay sidee tahay nafteydiyo lama socotid howlaha sanadani haysee, sasaabiyo wax sheegiyo samir waanka quusto, waa inaan salgaara adna sibi ku dhaafiyo salaan guud ha joogti, sidee tahay maad oran intaad soo dhawaate, sabab kale hamoodine suntaadii habeenadan waan ka seexan waayo,
seedahaadii goyse